xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee ucud iyo wadani ayaa waxay maanta go'aamo ka soo saareen hadalkii dhawaan madaxweyne Biixi ku sheegay in uu furayo ururada siyaasadda. xisbiyada mucaaridku waxay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid sharci darro ah isla markaana xeerarka dalka u yaala aan loo bedeli karin mid dana shakhsi ah loo adeegsado. xisbiyadu waxay ku dhawaaqeen in sanadkan gudihiisa dalka laga qabto doorasho madaxtooyo oo la soo horumariyay si ay Soomaaliland u kala badbaado. موقفka labada xisbi mucaarid oo door qodob ka koobnaa waxa warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro waxaana hadaladiisii kamid ahaa anoo ku hadlaya magaca labada xisbi qaran ee mucaaridka waxaan salaamaya dhammaan shacbiga reer Soomaaliland iyo saxaafadda waxaan halkan idinku soo akhriyi doonaa war saxaafadeed ay soo saareen labada xisbi mucaarid oo ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku maanta marayo. shir ay maanta oo taariikhdu tahay 22 bisha 2 2020 isugu yimaadeen labada xisbi mucaarid ee ucid iyo wadani hoggaankoodu waxay ku lafagureen kagana arrinsadeen mowqifka iyo go'aanka labada xisbi ee xaaladda guud ee dalku maanta ku jiro wuxuuna u dhigan yahay sidan. walaalayaal maanta waxa muuqata in Muuse Biixi uu xuub siibtay keligii taliye cagtana saaray wadadii hore loo eeday ee qayrkii iyo jannadii dhagarta ku caanka ahaa ay mareen. waxa muuqata inuu burburiyay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayay isla markaana tacab badani shacbigan ka galay. waxa muuqata inuu mijaxaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliland oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed. waxa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo igmaday isla markaana uu si badheedh ah iyo ku tumasho u jabiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa. waxa maanta aan cidna caad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii haybadda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheedh ah xididada ugu siibay oo ay noqdeen saylad Muuse ka adeegto. waxa maragmadoon ah in Muuse maanta cid walba uu dhabarka u soo jeediyey cid kasta oo la jecel kale dalkan wanaagna la rabta iyo horumar iyo jiritaanka Soomaaliland haddii ay tahay xisbiyada qaranka haddii ay tahay beesha caalamka haddii ay tahay waxgaradka culimada iyo ganacsatada Soomaaliland. waxaana ugu dambeeyay go'aankii uu ganafka ku riixay ee ergada dhexdhexaadinta oo saddexda xisbiba u aqbaleen. waxa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hogaaminayay keentay inuu ku rido Soomaaliland god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan isla markaana ina dhaxal siisa guul darro iyo khasaaro tacab khasaar weyn. waxaad ogeydeen in Muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinnadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda uu labada gole kaga dhex dhawaaqay inuu furayo ururada siyaasadda ka hor muddo xileedkii axsaabta qaranka. kadib markii uu ka takhalusay ee gacantiisa galeen labadii gole qaran iyo maxkamadihii iftiinka qura ee dadka u baxayay xukuumaddana ka hor taagnaa dibindaabiyada iyo khaladaadka joogtada ah ay ku jirto waxay ahaayeen xisbiyada qaranka. tallaabadan uu qaaday waa burburinta xisbiye madax bannaan oo qaran oo isagu u arko
caqabad inay ku tahay qorshihiisa keligii talisnimo ee uu ku hamiyayo arrimahan oo kale oo uga jeedo inuu indhaha dadka ka jeediyo fashilka kaga dhacay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hoggaaminta gudaha inuu dib u riixo doorashooyinkii qorshaysnaa sannadkan ee kala ahaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si uu u helo isna muddo kordhin madaxtooye oo xaaraan ah inuu burburiyo xeer number 14 oo sida uu doono u qorto ugana ansaxsado golayaasha qaranka si uu soo saaro ururo iyo xisbiyo cusub oo xukuumadda taabacsan tallaabooyinkaas oo dhammaystiraya nidaamkiisa keligii talisnimo waa sharci darro in xeerarka loo bedelo dana gaar ah xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka oo aan laga talagelin axsaabta qaranka ee ay khuseeyaan wax ka beddelkiisu waa sharci darro waana xaaraan nuxurka maanta ee shirkan jaraa'id waa sidan labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Somaliland ee marxaladdan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sanadkan gudihiisa 2020 maadaama uu muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horeeyo golaha wakiilada isla sanadkan 2020 maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan 10 sannadood in sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sanadkan aynu ku jirro 2020 waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka arrinta wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland madaxweyne muuse aniga iyo maxamed biixi yuunis waxaan kula kulannay Addis Ababa waxaanu nala wadaagay in isaga oo aan filaynin isagoo aan filaynin uu waqti kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula kulmay madaxweyne farmaajo Soomaaliya wuxuu nala wadaagay madaxweynuhu in ra'iisul wasaaruhu ku yidhi waxaan bilaabayaa oo dhexdhexaadinayaa wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee madaxweynuhu lama wadaagin safar ay ku soo aadan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo toona sida la sheegay kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15 February madaxtooyada kulankaas oo axsaabta qaranka lagu soo marti qaadin kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka ra'iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne farmaajo taas oo muran cadho iyo jahawareer gelisay shacbiga Somaliland wararka imaatinka ee ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog waramin wixii dhacay iyo wax hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dawladda Itoobiya oo saxaafaddana soo warisay
wafdi ka yimi dalka Itoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay sidii jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba lama wadaagin iyo wixii jawaab la siiyay toona axsaabta qaranka iyo shacbiga Somaliland waxa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer Somaliland oo mudan aad iyo aad ba mahadsantihiin Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa.